waxaan ka jawaabaynaa hadalkii xalay laga sheegay maaragta internetka wax awdal la yidhaahdo dhulkan yaallaa ma jiro. awdal waa meeshii dhashay dowladda Somaliland, waa hooyadii Somaliland. ruyo waxba laguma keeno. ruyo ninka awdal laa sheeganaya beertoodii ma arkay, beertoodii uu ka tegey ee inanka diraad ma arkay, waa maya. markaa taladiisu tumeel meesha ninka casiirka carruurtiisu cabayso dhulka rag baa u soo hergemay. raggii awdal ee odayaashii baa samaystay dowladda Somaliland baa ka mid nahay. been sheegidda ka daaya weytay, been sheegidda ka daaya. waxa weeye aqliga xakiimka ayaa taliya, waxa wanaagsanna waa lagu daydaa. aqliga xakiimkaa ma raacaysiin, waxa wanaagsanna ma haynaysiin. ruyada beentiya iska daaya. aniga waxaa la yidhaha xildhibaan Nuur Rayaalo Khayre, waxaan ka jawaabayaa ninka magaca ayaga isneed awdal baan madax ka hayni waa beenti. hadalkan go'aankaasu ku dheeyaa. bismillaahi raxmaani raxiim. magacayga Suldaan Cabdiraxmaan Muuse Geelle weeyi. waxaan ka tirsanahay salaadiinta gobolka Awdal. beelaa maxamed xasan ka soo jeedaa. waxaan ka jawaabayaa nin aan ka arkaynay TV-ga oo Awdal State madaxweyne aan ahay. Awdal State wax la yidhaahdo aanaan maqal annagu aanaan ogeyn meelay ku nooshahayna ka hadlayay. kolkaa waxaan leeyahay wax Awdal State la yidhaah horta annagu ma ogin, mana jiro, kamana dhici karta. dhulka dad baa ka taliya, guurti baa jirta, baarlaman baa jira, madaxweynea jira, madaxweyne ku-xigeen baa jira, golayaal dowlad baan annagu Somaliland la yidhaah. marka ninka Awdal State iyo wax dowladii waxaa sheegaya horta intuu yimaado dumarka ceel biyo ha u qodo, ceel biyo ah ha u qodo, warshad yar ha keena sida qayrkii. kuwa Awdal baan nahaydaya dowkaa raggu dibadaa ka wada imanaya, dadkooda wuxu qabanaya, horta dee waxa u qabtaan. dee mashruuc xun oo dibadaha lagaga qalafaystasi annagu waxaan ognahay maaha. 60kii ma joogno, waan ka soo gurnay 60kii, laysma badowsan karayo. dowlad baan nahay, dad baan wax la leenahay, lana badowsan kari maayo. haddadeed odayaal baa u taliya dhulka dowladda kasako, annagaa ka talina dhulka. ina yaroo dibadaha joogaa waxba kama oga. muxuu ka ogyahay? qof bakteeya ma oga, ku nool ma oga, waxa la wuxuu ka ogyahay ma jiro. dee mashruuc dibadaha lagaga shaqaystaana yaa wax annagana khuseeya maaha. hadduu inanku u dhashay dhulku u shaqo tegay, dee sida inamada qayrkiiya ha keenan wax. dadku ku noolaado, beelasha ha qodo, dhul ha dhiso, biyogelin ha sameeyo, warshad ha keeno. dee waa inamada qayrkiiya dee waa ogyahay meel la jooga. annagu ma ogin waxistay la yidhaa iyo mana maqli karna mana ogin. asalaamu calaykum.